currently shelling military bases in Kuwait and Bahrain with ballistic missiles and drones. So far, all of them have been intercepted. Not concerned about anything with the investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي qiimaha badan kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhawaada channelkeena Abraham Show maanta maxaa inaga cusub maanta waxa inaga cusub saddex qodob oo aad u muhiim ah qodobadaas insha Allah aan mid u faahfaahin doono qodobkana koowaad waxa uu noqonayaa warbaahinta Trump markii ay warbaahinta qaar ay wareysanayaan waxa hadda sad video ka daawanaysan waxaad ka aragtaa Trump oo leh wariye kamid ah waxa uu weydiinayaa su'aashaas oo ah mid aad u adag kadibna Trump waxa uu leeyahay please microphone-ka dami oo fariiso su'aal dambena ima weydiin kadib Trump oo ku soo rogay dhammaan wariye meesha fadhiyay inaysan wax video ay iska duubin hanjabaya mararka qaar mar hore ayaa ugu dambeysay Trump oo wararka warbaahinta caalamka waliba kuwa gaar ah in uu aflagaadeeyo afka laakiin arrintan waa mid hadda soo cusboonaatay mar hore ugu dambeysay Trump oo warbaahinta afka ka aflagaadeynaya haddaba Trump waa kan asagoo hadda mid kamid ah warbaahinta CNN-da aflagaadeynaya oo leeyahay adigu waxaa tahay cadow ima weydiin kadib wax su'aal ah haddaba Trump waxaa lagu yaqaanaa markii su'aal direction la weydiiyo oo jawaabteedu adag tahay ama su'aal adag wuxuu isku dayaa in uu ka meermeerto uusan ka jawaabin waa nin aad u caqli badan waayo wuxuu isku dayaa in bedelo ujeedka hadalkan oo dhan waryahani wuxuu ku adkeenayaa su'aasha laakiin Trump ma aha mid marnaba ka jawaabaya su'aasha haddaba qodobkeena labaad Mareykanka oo bartilmaameedsaday ama weerar ku qaaday jasiirad ku taala Iran jasiiradaas oo waliba ay ku weerareen diyaarado cirka waliba duqeymahaas oo ah mid toos loo dheeratigeliyo aan marnaba laga gangabanayn Mareykanku markan dagaalkan ay waxa isleeyahay tartiib ayuu u soo laaban doonaa duqeymaha loo geystay Iran waa mid ay ka falcelin doonto aysan ka joogsami doonin sababtoo ah dagaalkan waxa indhaha ku haya caalamka oo dhan waxaa laga baqayaa in mar labaad soo rogaal celiyo dagaalkii muddo ka hor dhamaaday ama heshiiska hadda lagu guda jiro marnaba macquul ma noqon doonto Iiraaniyiintu in ay ka jawaab celin doonaan dagaalkani sababtoo ah duqeymahan waxaa lagu geystay khasaare aad u badan waliba iyagoo la bartilmaameedsanayo qodobka labaad waxa uu noqonayaa uu soo dhigay miiska in ay wada hadal ka galaan uraniumta dadkan aqoon waxa weeye waa macdanta laga sameeyo hubka iyo laga dhaliyo korontada waliba hubka qaar aad u khatarta badan nuclear-ka macdantani waa in ay ka wada hadlaan Iiraaniyiinta iyo Mareykanka si ay u xaliyaan sida loo isticmaali lahaa ama habka ay Iiraaniyiintu ay u sameyn lahaayeen haddii ay hayaan macdan uranium ah inaysan u dhoofin wadamada kale ama wixii kale ay hayaan ay burburiyaan si aan loo isticmaalin qodobka labaadna wuxuu noqonayaa uraniumta aan isla eegna qodobka saddexaad uu soo dhigay miiska wuxuu noqonayaa asagana qodobkeena saddexaad waxa uu noqonayaa in cunaqabateyn lagu soo rogo Iiraaniyiinta waliba in la xadido iibka shidaalka kuwaas oo ah mid aad u xadidan iyo xanibaadda bangiyada in la xanibo bangiyada ku yaala Iiraan in la xanibo waliba xanibaadda uu soo rogayaa kala caqabadaha bangiyada caalamka waliba in la caqabad gareeyo bangiyada caalamka xanibaaddaas oo ah mid uu soo rogayo inta ayna shuruudda la gelin laakiin uma eka mid macquul ah ay marnaba aqbalayso ama ay yeelayso Iiraaniyiintu sababtoo ah wax caqli aan gelaya maaha aan kugu tunto weeye anigu iyana waxba samayn Mareykanku waxa doqonnimadiisu wuxuu moodaa dadka inuu ka caqli badan yahay laakiin Iiraaniyiintu ayagu maaha kuwa sahlan oo ka yeelaya haddaba xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa sheegay shuruudaha koowaad uu soo dhigay miiska ka hor inta aanan lagu dhawaaqin heshiiska waxa uu sameeyay heshiiska waxa ay ka soo hormariyeen dhowr shuruudood oo laga rabo Iiraaniyiintu inay sameeyaan shuruudda koowaad waxa ay noqonaysaa in marinka Hormuz uu yahay marin aad u muhiim ah oo waliba marinkaas oo mara Oman iyo Iran waliba marinkaas oo ah mid aad u muhiim ah oo maraakiibta ay shidaalka ay maraan haddii ay Iiraaniyiintu ay ka cabsiyaan ama ay ka khalkhalgeliyaan maraakiibta waxa ka imaan kara wuxuu dhahay saddex qodob aad u muhiim ah ama saddex bounty
saddexda qodob waxa ay noqonayaan in kow shidaalka uu kor u kaco caalamka oo weliba qaaliyo xaaladdan lagu jiro. qodobka labaad wuxuu noqonayaa dhaqaalaha caalamka inuu isaguna hoos u dhaco iyo wadamada qaar in xagga dakhligooda u hooseeyo. marka Rubio ku dhawaaqay in marka koowaad ay furaan marinka Hormuz weliba ay ugu dhawaaqeen Iiraaniyiintu ay ku dhawaaqeen in ay fureen marinka Hormuz oo weliba ay marayaan maraakiibta si aan joogsi lahayn. shuruudda koowaad waxay noqonaysaa uu soo dhigay miiska shuruuddaas. haddaba Marcos Rubio ayaa sheegay in xanibaadda laga qaadi doono cunaqabataynta xitaa haddii ay furaan Iiraaniyiintu marinka Hormuz. xitaa cunaqabataynta kama qaadi ayuu dhahay hadal cad. shuruudaha ku xiran wuxuu leeyahay dhammaan shuruudaha ku xiran aan soo dhignay miiska waa in ay wada fuliyaan markaas ayaa cunaqabataynta ka qaadana gaar ahaan weliba shuruudda waxa ugu muhiimsan weliba gaar wuxuu dhahay barnaamijyada ku saabsan nuclear-ka. markaas ayaa laga yaabaa shuruudaha qayb marka ay buuxiyeen in aan cunaqabataynta ka qaadno. balse haddii ay marinka Hormuz xitaa ay furaan Iiraaniyiintu wax cunaqabatayna kama qaadayno. hadal asleedahay marna waxaan jawaab marna asleedahay waa si kale u socdaa balse Iiraaniyiintu mid ay yeelayaan ma aha. haddaba asxaabteena qiimaha badan haddii mar aad soo gaadhay fiidiyoga meesha ugu dambeysa please waxaan codsanaynaa inaad na support gareysaan oo aad daawataan fiidiyoga haddii aad daawataan asxaabta qiimaha leh inaad channelka subscribe saartaan like iyo comment-iba waayo waxay noo noqonaysaa dhiirigelin bartan waxaan kusoo gudbin doonaa dhammaan wixii wararka caalamka ku cusub weliba iyadoo insha Allah marba mar ka dambeysa aan samayn doonaa update sida qaabka aan xogta usoo gudbin doono insha Allah. asxaabta waan insha Allah taageera channelkan insha Allah haddii mar aad fiidiyoga soo gaadhayna waxba kaama dhimisa ballanka gabalka ka fur subscribe-tana taabo insha Allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti kale oo wacan oo wanaagsan. qodobka labaad waxa uu noqonayaa uu soo dhigay miiska in ay wada hadal ka galaan uraniumta oo dadkan aqoon waxa weeye waa macdanta laga sameeyo hubka iyo laga dhaliyo korontada weliba hubka qaar aad u khatarta badan nuclear-ka. macdantani waa in ay ka wada hadlaan Iiraaniyiinta iyo Mareykanka si ay u xaliyaan sida loo isticmaali lahaa ama habka ay Iiraaniyiintu ay u sameyn lahaayeen haddii ay hayaan macdan uranium ah inaysan u dhoofin wadamada kale ama wixii kale ay hayaan ay burburiyaan si aan loo isticmaalin. qodobka labaadna wuxuu noqonayaa uraniumta